andre byer på østkysten af Somalia, og vi håber, at vi kan få en lige så positiv dialog, som vi har fået med jer. wuxuu yidhi waan jecelnahay inaynu sii kordhino wadahadalkeena iyo xidhiidhkeena waxa kaloo aanu jecelnahay xeebta Soomaaliya way dheer tahay in magaalooyin kale oo iyaguna xeebta ku yaala aanu xidhiidhka aanu idin sameeyno oo kale ayagana la yeelno si aanu wada shaqaynta u sii weynaato. Så vi håber, at vi kan udbrede det rigtig gode eksempel, vi har på Hobio, hvor vores system måske kigger på, at vi godt kan tænke os at samarbejde med på økonomien, ligesom vi har et rigtig godt samarbejde med Hobio, vi skal godt tænke os også at have et godt samarbejde med Gaga. Ja. Waxaan jecelahay buu yidhi iminka inaan sidaan Hobio oo kale xiriirka ula sameynay aanu wada hadal iyo soo dhawaasho uga helnay inaanu garacad magaalada la aanu marka dambe aanu isku dayi doono inaanu xiriir iyadana la sameeyo. Men det vil jo blive en tilsvarende proces, som vi har haft med Hobio, hvor vi skal finde de rigtige mennesker at tale med. Vi har fundet jer. I var de helt rigtige mennesker at tage kontakt med. Har kendskab til, hvad situationen er, og vi kan og måske har kendskab til, hvem er de rigtige mennesker at tale med, hvis man ønsker at have en dialog med dem, ligesom vi har en rigtig god dialog med Hobio. waxaan rajeynayaa buu yidhi amba suurtagal ah inaad idinku noo samayn kartaan xiriirka oo ka taqaaniin dadka halkaa degan magaranaysaa matala magaalada aad noo samayn kartaan xiriirka si magaranaysaa sidaan anigii noo soo xiriirkan kale inaad xiriirka samaysaan. Og læse om, hvad sker der i Hobio, få en rigtig god samtale med jer, og god dialog med jer, og I har fortalt os en masse ting, som gør, at vi ligesom har en følelse af, at nu forstår vi, hvad er udfordringerne på Hobio, og hvad har vi bidraget ved at være til stede, og tilsvarende kunne vi jo se på i forhold til Garkat, men det er så også være en ret stræk. laakiin anagu iminka in muddo baan Hobio areadeeda ka shaqaynay oo muddaynu u qaadatay inaynu isfahanno oo aynu magaranaysaa Hobio waxaa ka socda akhrisano idinku aynu isbaranno aynu yaxsuuno aynu la hadalno laakiin taas waa waxa iyaduna qaadan doontaa gobernatooraha gobolka oo kale iyo mayorka xagga iyo taliyaha qaybta xagga sidaan oo kale in qaybtaasna aad kulan la yeelataan. Det selvfølgelig vi kan arrangere og de kan I kan snakke med de tilsvarende folk ligesom Ali Duale og Mayon og de andre. Det kan vi, det er noget vi kan hjælpe. Det vil være en meget, meget stor hjælp. Du mener afweyn weeye runtiina gobolkaasi ugu diyaarsan yihiin meetiga taas xiriirka waa galmudug weeye idan iyo afweyn ayuu ka shaqeeyaan. Der er ikke nogen byer der hedder Idan og Afweyn der er en del af Galmudug. Men selvfølgelig la soo qaadan jiray looma baahna. Ja, det er navig. Det er meget, vi har ikke brug for alle de våben, vi så sidste gang. Og også den der, som har været her, sidste gang har de analyseret en hel område, hvor de skal måske kigge efter for at bygge, starte den der havn. Og nu tjekker de andre områder også, for at lave en analyse for det hele. أسبوعاً تضاد من وصلت قياستي يا أنا حلق أنا يا ماشي كده بالله. I det næste 7 dage, så skal de komme med afgøre, hvor de starter fra, hvor de skal starte fra projektet. Så det vil sige, det jeg synes, jeg har kunnet læse mig til i pressen, det er sådan en trefaset plan for Hobio havn. Kan de beskrive lidt nærmere, hvilke faser der ser ud for Hobio? wuxuu yiri yani ani markaan fiirinayno yiri waxaan ka aragnaa akhbaarta iyo meelahaas in oo ay saddex wax kala qaadanayso yani phase 1 phase 2 3 oo kale hadda goorma bilaabaysid marka yani ma noogu sheekin kartid ma noogu hadli kartid. taliya Cabdiweli Xasan Xirsi soma taliya Cabdiweli Xasan Xirsi waxaad ku sugan tahay markabka lambarkiisu uu yahay 508 bal iiga waran hawlaha aad kala wada hadasheen raggan ciidanka ee ammaanka badaha Soomaaliya suga maxaad ka wada shaqeyn karaysaan oo aad ka wada hadasheen saaka? Okay waa xiriir dheer weey waa iskaashi baa jira qaababka maaragtay ammaanka iyo burcad badeeda iyo maadaama deked laga dhisayo meeshaan
waxay u baahatay iskaashi caalamiya sida dowladda federaalka ciidamada neeto waa codsi kolley generaal oo galmudug xaggeeda ka yimid ilaa heer madaxweyne socday in maaragtay awoodda lagu dhisayo dekedaan iyo nabadgelyada galmudug xagga xeebaha iyo ammaankeeda maaragtay qaabkaas hawl ku timid weeye taliya waxaad adigu dhankan ammaanka u qaabilsan tahay degmada Hobyo bal waxa gaarka oo aad kala hadashay ama ay kula qaban karaan haday noqoto xagga ciidanka qalamaynta haday noqoto tababarada iyo haday noqoto xiriirka dhanka badda marka burcadbadeed aad dareentaan kaleeto iga waran sideed uga wada hadasheen maxaa ka suurtagal noqon kara leedahay maadaama kulamo hore aad la yeelatay maraakiib kale oo sidoo kale ma la yeelan kartaan tababar iyo wax ka weyn waaye waa xiriir joogto ah oo military sama waaye heer hawlgala caalamiya ammaan sugida baan u jirnaa wax maaragtay codsiyo iyo wax maaragtay hadii la ku rooyahay maaragtay professional oo shaqooyin oo yar iyo midna maahan waa ciidamada neeto sida ay u jeedid qalabkan iyo hawsha halkan ciidankan iyo mid kale biriga jooga sawa waa isla mid waa iskaashi ammaanka dekedda iyo dadka dhisaya wixii burcadbadeed iyo afaareed ah haddii la ku rooyahay qaababka noocaas dhammaan ammaanka xeebaha ee galmudug ayaa waxaa iska kaashanaya ciidamada taliska qaybta labaad ee galmudug iyo waaxda neeta ayaa iska kaashanaya dhalinyarada ku howlan weli burcadbadeednimada iyo howlaha argagixisannimada ah biriga laga yaabo mararka qaar inay falal noocaas kale ka geystaan oo maanta ku dhageysanaya maxaad ugu baaqaysaa markaan gacantaan iskula jirnaa wax baaq ma jiro waa noo dagaalno wixii laga bilaabo saacadan iyo waqtiyada noocaana afaaraha aan leenahay hadday soo faragashadaan baaqii iyo idaa maaragtay fariimihii iyo way dhammaadeen iska dhicin baan maraynaa anagu markaan waa dhaafna wax baaq la yidhaahdo على هوبيو barkoodii oo yaala halkan waa xabsiga burcadbadeedda marka la qabto maraakiibtu ay qabtaan lagu xiro waxaana looga taxadiray si aan caadi ahayn sida aad ka dareemi kartaan dharkoodii oo nadiif ah halkaas uu yaala halkan waxa yaala kitaabka quraanka iyo salliga ay salaada ku tukan lahaayeen waqtiyadooda ka tilmaayaan inkastoo badan ay sabiriga ku tukan haddana halkan waxay ka heli doonaan tarabiyo sidoo kale shoppingkooda iyo qalabka ay isticmaal lahaayeenna halkan ayuu u yaala intaan la soo qaban ka hor ayaa la diyaariyay sida awgeed waxaa laga yaabaa mararka qaar burcadbadeed inay jeelkan u soo xiisan ay yimaadaan sida ka muuqataba bismillahirrahmanirrahim kulankaygaani kii labaad weeye yaanu la yeelanay markabkan NATO oo ay leedahay dowladda Denmark oo la yiraahdo Eidor runtii kulankaygaani wuxuu soo kordhiyey oo uu xoojiyey amniga galmudug xeebaheeda waxaanan maaragtay ku heshiinay inaan ka wada shaqeyno amniga xeebaha galmudug waxayna nagala shaqeynayaan sidoo kale in aan kalluumaysiga sharci darrada ahi
uusan deegaankan kasii jirin haddii lahaydmo sidii hadda kulankayagan uu u dhacay wax weyn baa iska bedelay deegaanka falalkii burcadbadeednimada dadkii rajada ka qabayna way rajo beereen kuwa danbo hadda kusoo socdaana ma ay jiraan waan uga mahad celinayaa runtii kulamadaas iyo wada shaqaynta aanu leenahay ciidamada neetan waxaan oran lahaa dowladdani waxay qaaday tillaabo aad iyo aad muhiim ugu ah shaqadooda iyo midii la dagaalanka burcadbadeedda intaba ama ka hortagga burcadbadeedka ay idhaahdo runtiina wada shaqayntaasi waxay noqon doontaa mid sii socota oo deegaankan iyo dadkiisaba iyo internationaliba ama maaragtay maraakiibta caalamiga u horseeda nabad. wasiir adoo mahadsan dadkan dhallinyaradan hadda kalluunka ka shaqeeya addoomaha yararka wata badi marka la fiiriyo waxay ka yimaadaan Kismaayo iyo Muqdisho. dhallinyaradan burcadbadeedda galmudug u badanna waa dhallinyaro aan xirfadda aqoon. ma kala hadasheen NATO mas-uuliyiinta aad kala kulanteen in dhallinyarada deegaanka tababar la siiyo maadaama awalba ayagu burcadbadeedda ay ahaayeen? runtii xaqiiqa wey dadkani ilaa xilliga ay ku jireen howlaha aan fiicnayn ee burcadbadeednimada waxaa dhammaaday agabkii kalluumaysiga oo ay lahaan jireen mana ay haystaan waxyaaba aan ka hadalnana way ka mid tahay in dadkan shaqo loo abuuro isla markaasna xirfado ay ku kalluumaystaan la baro dee dabcan waad garanaysaane waxaad gacantooda ku jira ayago ay kuleeyihin hoo ma jirto balse way naga aqbaleen inay codsigooda ay gudbiyaan oo ay u gudbiyaan dowladdoodii iyo hay-adda hadda ay xulufada ay yihiin oo NATO intaba. su-aasha kale aan rabaa wasiir inaan ku weydiiye waxay tahay haddii baahidiina aad gudbiseen community-ga waddanka Denmark ee raggan ay ka socdaan dad ka mid a ayaa la haystaa mid raggaasi qaar ka mid a dhibaato ayaa haystaa iyada group kaloo Indonesia u dhashay nin ka mid a sidaan warar hoose ku helaya xanuun ba-an oo uu ka qaaday biyaha iyo cimilada ayaa haystaa maxaad kala qaban kartaan raggan mase ku weydiiyeen oo su-aalo aad arrintaas jawaabteeda u haysa ma siisay ay ku qanci karaan? runtii aniga horta dad la haysto nooc kasta ahaadeen waddan kasta ka yimaadeen waan ka xunnahay aad baan uga xunnahay waana jeclaan lahay inaan ognahay meel ay lagu haysto oo aan maaragtay kasoo maaragtay badbaadin karno annaga deegaankayaga kolley cid lagu haysto oo maxay ahayto ma ay jiraan marka wararka adigu meesha aad ka hesheen waa jeclaan lahay inaan ogaano meesha dadka lagu haysto si aan gacan uga geysano xorriyaddooda sidii ku heli lahaayeen laakiin waxaan xaqiijinaynaa inaysan deegaankayaga dad cid lagu haysta aysan jirin. ugu dambeyn adduunyada way iska warqabtaa wasiir bulshaduna way is og tahay mararka qaar inkastoo marka horeba lala soo galay dhulka galmudug haddana Puntland iyo galmudug iyo area al-shabaab way iskaga gudbaan oo burcadbadeedda xiriir ayay leeyihiin movementiga iyo dhaqdhaqaaqa ay sameynayaan waad ka warqabi kartaan maxaad kala qaban karaysaan haddii wax laydinka weydiiyo klar til at sætte styrbord og bagbord rigt. Fædrevet tørt til bagbord. aniga iyo ninka Danishka yimaada ama Mareykanka yimaada maxay ahayto hooyo isku mid baan u nahay burcadbadeed marka macnaheedu waxa weeye cid burcadbadeeda ee halkan ka shaqayn kartaa hadda ma ay jirto. kuwa aad ballan qaadeen burcadbadeednimada hadday joojiyaan inaad wax u bedela aad siinaysaan ilaa hadda inay waxdan kala qabanayaan ma idiin sheegeen maxaase u qabanaysaan ayaga dhallinyarada maadaama baaga muddo ay u leeyihiin? su-aashaas waxaan walahi hore inaan kaaga jawaabay burcadbadeednimada dhallinyaradii ku howlaneyd ee hadda baaga muddada ah waxaanu kaligoodna maahaane hay-ado kale ayaan laftooda codsi weydiisanay in dadkaa shaqana loo abuuro isla markaasna la baro xirfado ay ku shaqaystaan. Det har været en stor ære endnu en gang at kunne mødes med repræsentanter for Hobio og for Galmudug. sharaf weyn ay ahayd ay wada kulmeen. Vi har igen denne gang diskuteret udviklingen i Hobio, og det er med glæde, vi kan konstatere, at sikkerhedssituationen på den korte tid siden sidste besøg er yderligere forbedret. waxaan yani ka wada hadalnay aan rabnay inaan ka wada hadalno xagga amniga say wax u horumareen say wax isku bedeleen markii hore aan is aragnay iyo markan inta u dhaxeeyay muddo xoogaa yar gaaban inay tahay laakiinse waxaan jeclayn inaan sii ogaano waxaasan ka hadalnay. Vi kan se, at der er projekter i gang i Hobio, som vil kunne tilføre byen
velstand over tid, og det er en glædelig begivenhed for byen. waxaan arkaynaa yani mashaariic oo aad wax u fiican inay ka socdaan Hobyo oo yani dadka degaankana wax u taraya iyo dadka meesha degan. Men vi må også erkende, at for at det kan lykkes, så må vi som det internationale samfund sikre, at vi kan opretholde sikkerheden fra søsiden af, således at Somalia selv kan koncentrere sig om at få sikkerheden på landet. anaga marka yani si hadaan nahay dadka oo caalamiga ah waxaan isku dayaynaa inaan badda xaggeeda yani idinkaga caawino amniga badeed ilaa iyo aad idinka qabsan kartaan hadhow Soomaali yani Soomaalidana waxaan rabnaa dhulka inay ammaankiisa qabsadaan anagana intaas aan badda idinka caawino. Og vi kan på baggrund af dagens møde se, at en sådan arbejdsdeling bærer frugt, og at vi understøtter den positive udvikling, som er i gang nu i Hobyo. markaan aragnana sida mashaariicda hadda u socdaan oo mashaariicdan aad ku tala jirtiin waxaan arkaynaa in amniga iyo wax walba ay imaanayaan haddii marba meesha shaqo fiican bilaabato oo dadkina shaqo helaan. Vores erfaringer fra samarbejdet med myndighederne i Hobyo og i Galmudug vil blive anvendt som skoleeksempel for samarbejde andre steder på kysten af Somalia. marka yani waxaan aad ugu faraxsanahay aan is aragnay aan kulanay dadkan Hobyo ka socdaan waxaan jeclaan lahayn yani magaalooyinkan xeebaha ku taala dhan inaan yani wada soo aragno xiriir yeelano. Og vi håber, at vi inden for vores mandat vil kunne tilvejebringe sikkerhed på hele den somaliske kyst. waxaan jecelnahay yani anaga sida hadda nooga siiyay mas'uul aan ka nahay yani amniga badeed inaan xeebaha dhanba aan amni u yeelno oo si nabad ah ay noqoto. Men en forudsætning for det er, at vi fortsætter med at være i dialog med specielt de ærede folk i Hobyo, men også med andre folk på kysten. marka si aan yani u hubino in anagana amnigana iyo operationkeena camaliyadeena ay si fiican u socoto waa inaan xiriir daa'im la lahaanaa dadka wada degan xeebaha sida aadaan hadda xiriir la leenahay Hobyo waxaan jeclaan lahayn inaan xiriir kale yeelano gobollo kale oo xeebaha ku taala. Men med de oplevelser, vi har haft med samarbejde med folk på Hobyo, så tror vi på, at det her det vil lykkes i fællesskab, og at vi vil komme pirateriet til livs inden for en overskuelig horisont. maadaama hadda aan ku najaxnay xiriirka aan wada yeelanay Hobyo waxaan jeclaan lahaa inaan haddana xiriir kale sii wada yeelano gobollada kale markay arkaan in xiriirkeenana saas u fiicnaaday ay burcad badeeda hoos u dhigto shaqooyinkooda dhan. su-aasha aan rabay inaan weydiiyo waxay tahay maamulka Galmudug oo aad markii labaad kulanteen waxaa jira shaqooyin ay rabeen inay biriga ka qabtaan oo ay uga baahan yihiin in laga kaalmeeyo isla markaana codsigiisa laydin soo gudbiyey sida in shamaaga ay helaan kalluumaysatadu in doonyaha sharci darrada oo wadamada kale ka yimaada laga caawiyo qaabkii ay isaga dufaaci lahaayeen in dhanka ammaanka oo biriga iyo badaba haddaad ka uga shaqaysaan taakulaynta iyo dib u soo noolaynta rajada dhalinyarada burcadbadeed ahaa imisay la eg tahay inaad arrintaas wax ka qabataan. Nu som det ser ud, at I har ansvar for sikkerhed på sø og sådan nogle ting. Men hvad er så muligheder, hvor meget kan vi sige procentmæssigt, at I kommer på land, og så kommer til fiskeri og på baggrund af den dialog og den viden, som vi har tilegnet os her i Hobyo, der vil det være muligt for os at sende rapport hjem om, hvad status er i området, hvilken positiv udvikling vi ser i området, og hvad er de største udfordringer i området. Og det vil så være op til en politisk beslutning om, hvilke tiltag der så skal gennemføres fremadrettet for at understøtte en positiv udvikling i området. waxa aan hadda yani ka qaban karno waxay tahay inaan hadda maadaama aan saan wada kulanay inaan report samayno aan u sii dirno dowladeena markaas ay iyagana sii fiiriyaan reportigaas ay haddana taxaliil ku sameeyaan markaas jawaab ka ogaan karna ka heli karna. Men det er vigtigt, at
vi ser på de muligheder, som også er inden for det nuværende mandat for os. Det vil sige, at vi kan godt iværksætte uddannelse af for eksempel kystvagtenheder eller tilsvarende, og så stadigvæk inden for det mandat, som vi har nu, hvor vi kun må være til søs. inkastoo ay saas tahay laakiinse waxaan hadda xataa awoodi karnaa ama aan samayn karnaa inaan tababar siino amniga kuwa dadkan la rabo in la tababaro amniga badeedka dadkaas waan tababari karnaa ayuu yidhi inkastoo aan waddankii soo geli karin noola ogolayn inaan beriga imaano anagoo badda ku jirnaan tababar siin karnaa dadkii. Og vores drøftelser med folkene fra OBIO har afdækket en række muligheder, som vi allerede vil kunne iværksætte inden for forholdsvis kort tid, og som ligger inden for det mandat, som vi har. Det betyder, at den politiske proces i medlemslandene i NATO kan gå i gang, men ikke nødvendigvis er en proces, som vi skal afvente, før vi kan iværksætte små initiativer i området. wuxuu yiri yani waxa dhinaca siyaasadda iyo waxaas dhanna waa inaan yani fiirinaa markay qaabilsan tahay kuwa NATO iyo operationka ay meelahan ka sameeyaan ay ku hayaan badda sidaas daraadeed uu yiri waa inaan iyagana yani la wada tashanaa laakiinse waxyaalahan waxyaalo yaryar ay jiru yiri anaga qaban karna aan u baahnayn yani inaan iyaga ka sugno ama dawladda laga sugno. Disse små skridt skal selvfølgelig ske i et meget tæt samarbejde med borgere og myndigheder fra OBIO, for at vi kan få det til at lykkes. Og derudover skal det ske i et samarbejde med chefen for Task Force 508, som jo er ham, der skal lave den overordnede plan for den indsats, vi laver. marka inkastoo haddana waxyaalahan yaryar yani waxay aad muhiim u tahay yiri inaan xiriir daa'im wada lahaano dadkan hubyo maamulka jooga teeda kale haddana waxaan usii sheegaynaa ayuu yiri ninkan waa inuu qaraarka gaaraa kan meesha haysto operationka 500 iyo 500 Ocean Shield kan la dhaho camaliyadan 500 Ocean Shield la dhaho waa inuu asagana qaraar meesha ka gaaraa oo isna nasiya yani ruqsad ahaan. ugu dambeyn qaar ka mid ah qoysaska ku nool degmada Hobyo waxay walwal badan ka qabaan carruur ay dhaleen iyo raggii ayaga ahaa qoysaskaas lahaa oo deegaanada badda ku teedsan oo dhan ah kuwaasoo lagu haysto ama burcad badeed ahaan falal lagu qabtay isla markaana Hindiya iyo ku xiran meelo kale sida awgeed suurtagal ma tahay inaad rajada soo nooleysaan oo warkooda aad u gudbisaan bulshada si ay isku helaan inay nool yihiin in kale maadaama qaar tacsidooda la dhigay inay dhinteen loo haysto. Det eksisterer, at mange der savner deres børn, altså unge mænd eller deres mand, på grund af de sidder i fængsel i Indien og i andre steder, og de har intet, de hører ikke noget som helst fra dem, eller de ved ikke, hvordan de, eller hvis de lever eller dør. Og mange af dem har allerede lavet en begravelsesceremoni, fordi de tror på, at de er døde, og de hører ingenting. Så hvad kan I hjælpe med det? Håndtering af pirater efter de er blevet fanget, det er et rent nationalt anliggende. Så det vi fra vores side af kan hjælpe med, det er en kontakt til pirater, som eventuelt har været tilbageholdt af danske krigsskibe. Ja. Wuxuu yiri anaga waxaan awoodnaa yiri inaan soo ogaano يعني أخبارته كوي أنا قد burcad badeedka aan anaga gudbinay waan soo ogaan karnaa ayuu yiri laakiin kuwa kale ma soo ogaan karno. Vi fører nøje register over de pirater, som vi har haft kontakt med, de pirater, som vi har afleveret til andre nationer med henblik på retsforfølgelse. Så hvis man efterlyser nogen, som man tror har været taget af danske krigsskib, så vil vi gå undersøge sagen. Anaga waxaan ku kaalmeyn karnaa ayuu yiri dadkii aan anaga qabanay dadkii aan anaga wadamada kale u gudbinay dadkaas uu yiri wax waan ka soo ogaan karnaa hadday noo sheegi karaan yani magacyahooda ama ay aan wax dadkaas akhbaar way ka keeni karnaa. Men det er også vigtigt at understrege, at du har jo haft lejlighed til at se fængselsfaciliteterne ombord i skibet.
og må jeg nok indrømme, at det er fine forhold, som vi tilbyder de pirater, som vi eventuelt tilbageholder. Ligeledes de pirater, som vi udleverer til andre lande, de bliver udleveret på en aftale mellem Danmark og så det land, vi udleverer til, som er meget striks omkring, hvilke forhold skal der tilbydes pirater. sida aad adigana hadda aragteen yani meesha aan ku xabisno dadka burcadbadeedka aan soo qabano waa yani waxaan ugu talagalnay inay si fiican loola dhaqmo aadan ahayn meesha in si dadka lagu ciqaabo marka aan dadna gudbinayno uu yiri aan wadamada kale u gudbinayno waa inaan la sameynaa aan la gaarnaa qaraar yani aan leenahay dadkan waa in si fiican ay ula dhaqmaan sidii aan anaga ula dhaqmi lahayn ay ula dhaqmaan waa inaan kala saxiixanaayo yiri marka dadka aan anaga gudbinay waxaan hubnaa in si fiican lala dhaqmo